بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وحويا إن شاء الله تعالى محاضرة كيدين منه لكن وحين كهذا لنا وحكى لنا ننكر أركتيهان وحويا هو قضب كلابات مركز دين الإسلام كلاجات تجو ذات الصومالي لا مهمة أولى وحين كهذا دونا إن شاء الله تعالى هداها يدغن كصومالي ذا هداها يدغن كصومالي ذا وإنه إن شاء الله أنت إلهي نكفز يحكي لدونه وحين كنت نامي كرا مركا ورئيسا قفك إشيدا هذا اسكو دايا هداها يدغن كهذا إنه لم يدي قف بدوين كل حد عاي وكله marka qof badweyn ku dhex dhacay waxa bad kalluuna ka doonaya waxa uga suura galaa wala garan kara wuxuu la kulmi karaa waxyaalo fara badan aqoonta badda gudaheeda manuulaha ku jirsan loo koobi karin si lamid ah ayaan loo koobi karin isaga dhaqanka laakiin qofba in buu ka yaqaan sida awgeed bal insha Allah tacaala waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob oo ka mid ah isaga dhaqanka oo si musalsala ama hadii la istibayaal aynu hadli doono laakiin qodobka horeeyay maanta ka hadli doonaa horta intayna gelin waxaynu guud maraynaa hidaha dhaqanka hidaha dhaqanku waa maxay waa laba eray oo isuwan asal ahaanna waxa asalsan dhaqanka oo horeeya dhaqanku waxa weeye waa waxyaalaha ay dad ama ummad ama shacab meel degani ku dhaqmaan oo ay wadaagaan ama isku xidhaan hiduhuna markaa waxa weeye waa waxaas oo marka jiilkii hore uu galbado ama ay iyagu dhintaan jiilasha dambe ay ka dhaxlaan ayaa la yidhaha waa hidde waxay hidaysanayaan dhaqankii qoladii ka horreysay inkastay taasi jirto dadka Soomaalidu maadaama ummad ballaaran tahay dhul aad u weyn ay ku nooshahay oo dhulka loo yaqaano shanta Soomaaliya ama lixda Soomaaliyaba ay aad dhul ballaaran u yahay waxa dhici karta in faraq weyn u dhaxeeyo marka laga hadlayo xaqaan loo dandego ama la eego wax weyn baa u dhaxeeya oo lama oran karo hidaha dhaqanka Soomaalidu 100% waa isku mid waxa jira waxyaalo badan oo iska shaabahan ama isku mid ka yihiin baa jira sida awgeed arrimahaas aynu qodob u qaadan doonaa oo uga hadli doonaa waxaana dhici karta nin waliba inuu inka yaqaan taasoo ku xidhnaan karta deegaanadii qofkaasi ku soo koray ama inta uu markaa agta soo mariyay indhihiisa ku soo arkay ayuu wax ka yaqaan marka intaas unbaa u fudud inuu ka hadlo u sahlan dhinac kale marka loo rogo waxaa laga yaabaa ereyga Soomaaliga ah oo Soomaaliga oo qodob waliba uu leeyahay midna 3 magac 4 magac oo kala duwan inaan lagu soo wada koobi karin meel maadaama inaan markaa buug qaamuusa ka hadlay intaaniga ii sahlan ayuu insha Allah taala ka hadli doonaa haddaynu inta kaga gudubno hordhaca waxyaalaha horta ka mid ah hidaha dhaqanka Soomaalida waxaa ka mid ah oo ugu horeeya kuwa ugu horeeya ugu muhiimsan waxaa ka mid ah guurkii Soomaalida hore ka mid ah dharkii Soomaalida hore ka mid ah suugaanta ka mid ah marka mid walba qodob ka mid ah ayaynu u qaadan doonaa mar gooniin ka hadli doonaa ugu horeyn haddii aynu markaa ka hadalno maanta waxa Soomaaligu yahay asal ahaan oo loo yaqaan dadka Soomaalidu waxay ahayn asal ahaan dad reer miyiga ama reer guuraa dadkaas marka waxay lahaayeen waxyaalo lagu garto reer guuraanimadooda ama inuu reer meel degan yahay sida caadiga ah qofku markuu meel soo maro wuxuu soo maraa u muuqan kara marka hore waxay waa gurigaasina wuxuu noqon karaa laba qaybood mid ahaan inuu noqdo guri madhan laga guuray iyo inuu noqdo guri la degan yahay hadaba calaamada lagu kala gartaa waxay tahay guriga la degan yahay badiba waxa ka dhisan aqal Soomaali ama Soomaalidii hore waxa la oran karaa dadkan hadda jooga ee siyaasadda u degay oo go'aysnaayeen waxay u degi jireen reero fara badan
4 qoys 5 qoys 6 7 ilaa 8 oo kale ayaa wada degi jiray marka waxaa la arki jiray aqal Soomaaliya halka ka dhisan guriga sidaas oo kale hadduu guri maran yahayna waxaa la arkaa marka inay ood kaliya tahay cid wax ka dhisan aan jirin taa markaan ka hadlayo waa markay maalintii taayaan xooluhu reerka waxa dhisnay sida weeda qal Soomaaligu wuxuu ahaa calaamada koowaad ee lagu garto dadkii hore ee Soomaaliyeed inuu gurigaas uu yahay guri reer Soomaaliyeed degan yihiin